halkan waxa ku yaala maqaaxi rameynka lagu iibiyo gudaha jasiiradda Rashiri oo ku taala erifka waqooyi ee dalka Japan. Marka aad Tokyo ka dhaqaajiso si aad u gaarto, waxaad ku safraysaa diyaarad muddo 2 saacadood ah kula soconaysa. Waxay ku geynaysaa Sayoro. Halka waxa kugu sugaya tareen ku geynaya Wakanai oo ah magaalo ku taala halka ugu dambaysa ee waqooyiga Japan. Kadib waxa aad koraysaa markab si aad u gaarto jasiiradda Rashiri. waxaad u dhaqaaqaysaa dhanka galbeed ee jasiiradda. Markaad halkaasi gaarto, waqtiga ugu fiican ee ugu habboon in aad gaarto ayaa wanaagsan. Maxaa yeelay maqaaxida aad u socoto maalintii waxa laga furaa 2 saacadood iyo bar oo kaliya. Laakiin in safarkaas oo dhan loo galo way u qalantaa. Jasiiraddan waxa laga helaa cuntada rameenka oo ugu wanaagsan Japan oo dhan. Marka ay arintu qusayso rameelka gudaha Japan, waxaa jira goobo kooban oo magacyadoodu ay soo jiitaan dad badan oo uga soo safra daafaha kala duwan ee adduunka. Maqaaxiyaha magaca leh waxaa ka mid ah Ramen Mirako. Dadku waxa ay soo doontaan rameenkan oo laga sameeyo harako si aad ah loo bisleeyay oo laga sameeyay maraqa dhir laga soo guray badda deegaanka. anigu waa Takamasa Isashika. Maqaaxidayda waxa la yiraahdaa Rishiri Ramen Mirako. Maqaaxida Riman oo aan maamulo waxa la yiraahdaa Riman Mirako. Waxa ay furneed laga soo bilaabo 2007. Aabahay ayaa furay. Waxaanu goosanay in dhadhanka dhirta badda aanu ku daro rimaanka aanu samayno si ay dadku u dhadhansadaan macaankiisa. waxaana looga yimaadaa daafaha kala duwan ee Japan iyo adduunka kale. Rimaankan si sahlan laguma diyaariyo. In la sameeyo waxa ay qaadataa saacado fara badan. Samaynta maraqa ayaa ugu muhiimsan. Waxaanu samaynaa 2 nooc oo maraq ah. Mid dhirta kamoga laga sameeyo iyo mid kale oo hilib laga sameeyo. Maraq kaliya in la sameeyo waxa ay nagu qaadataa 5 iyo 10 saacadood. 2 maraq ayaanu isku darnaa. waxaanan sugnaa waqti. kadib maraqa waxaanu ku darnaa harako, nooc digirta ka mid ah oo la shiilay. halkaas oo maraqu uu noqdo mid isku dheelitiran oo leh macaan iyo dhadhan wanaagsan. Su'aasha isweydiinta leh ayaa ah maxay dadku masaafadan oo dhan u jiraan? Waxaan u malaynayaa in ay salka ku hayso in aan isticmaalno tirada badan oo combo rishri ah. waana shayga ugu muhiimsan ee maraqeenu uu ka kooban yahay. waana sababta rimaanka gaarka noo ah uu u yahay mid aad u macaan. waqtigeena ayaa la gaaray. hal rimeen idii fadlan. waxaan ku rajaynayaa cunno macaan in ay ku noqoto. waa la yaab, aad ayuu u macaan yahay.